kusoo dhawaada warka habeenimo ee calansida midiya fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe sar gombeelka furdaawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo arbacaha qodobo xasaasi ah inoo soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya oo qabtay gaari xamuul ahi oo siday qaraxyo lagu baabi'in rabay shacabka Soomaaliya isla markaasina aad u cuslaa oo la soo gelinayay magaalada Muqdisho habeen hore ayay ahayd markii jidadka qaarkood ee magaalada Muqdisho la furay faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax laga soo buuxiyay gaari xamuul ahi oo ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ay maanta ku fashiliyeen duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose isla markaasina gaarigaasi ayaa u soo socday magaalada Muqdisho qaraxaasi ayaa la sheegay in al-shabaab ku soo rareen gaari weyn oo dhayna ahi isla markaasina uu ku soo socday magaalada Muqdisho sida wararka lagu sheegay howlgalka lagu fashiliyay qaraxaasi waxa uu ka dhacay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana fuliyay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa gorgor saraakiisha hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa sheegay in gaariga lagu qabtay deegaan lagu magacaabo Walamoy oo u dhow Afgooye sida kale xubno ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay howlgalkaasi Ismaaciil Siidow oo al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada Basro iyo saddex dagaalame oo ilaalo u ahaa ayay maanta dileen ciidamada militariga Soomaaliya sida ay sheegeen saraakiishu intii ay ku jireen howlgalkaasi maalmihii la soo dhaafay ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ayaa howlgallo culus oo ka dhan ah ururka al-shabaab ka waday gobolada Shabeellooyinka gaar ahaan deegaanada xiga caasimadda Muqdisho dhinaca kale madaxweyne Waare oo ka soo horjeestay jadwalkii doorashada ee lagu dhawaaqay maanta madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si adag uga soo horjeestay bayaankii ay maanta faafiyeen guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka ee labada aqal ee maamulkaasi Waare wuxuu soo saaray warqad uu ku naqdinayay go'aankii guddiga farsamada isagoo aaminsan in guddiga uusan waqtigaani shaqo gelin maadaama uu yahay qabyo isla markaasina ay ka maqan tahay qoondada haweenka sidoo kale warqadda ka soo baxday madaxweynaha waxaa lagu sheegay dhowr caqabad oo ku horgudban shaqada guddiga waxaana ka mid ahi inaysan jirin awoodsiin iyo tababar loo sameeyay guddiga sidoo kalena ay qiimeyn u baahan tahay marxaladda guud ee Hirshabeelle iyo in laga jawaabo tabashooyinka ay qabaan beelaha qaar si kastaba qoraalka la soo saaray oo ka kooban laba warqadood ayaa la baahiyay waxaana ugu dambeyntii lagu sheegay in jadwalka maanta la soo saaray uu ahaa mid aan laga tashan isla markaasina aan ka tarjumi karin xaqiiqda Hirshabeelle dhinaca kale ururka saxaafadda oo baaq u diray madaxweyne Farmaajo jirjirayd oo ay wadajir u qabteen SGS iyo Soma ayaa lagu soo dhaweeyay war shalay ka soo baxay saddex hay-adood ee kala ah HRW Amnesty International iyo CPJ ee ku baaqay in dowladda Soomaaliya ay joojiso falalka tacadiyada ah ee ka dhanka ah xurriyadda saxaafadda Soomaaliyeed SGS iyo Soma waxay kaloo ku baaqeen in saxaafadda loo ogolaado inay tartanka doorashooyinka uga soo waramaan si xor ahi oo aan cabsi lahayn ayna baari karaan arrimaha musuqmaasuqa doorashooyinka Cabdalla Muumin xoghayaha ururka SGS ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya laga doonayo inuu joojiyo ficilada lagu dhibaateyn karo saxaafadda Soomaaliya sidoo kalena loo baahan yahay in dowladdu dhageysato cabashada ay qabaan xoghayaha ururka Soma Maxamed Cabdul Wahhab Cabdullaahi ayaa sheegay in dalka uu aaday doorasho isla markaasina dowladda dhexe laga doonayo in ay cadayso doorka saxaafadda ee doorashooyinka waxa uu tilmaamay in sidoo kale loo baahan yahay in suxufiyiinta doorkooda sare loo qaado si looga hortago in doorashada soo socota uu dhaco musuqmaasuq xoogan xog xasaasi ah madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in doorashada aysan ka dhici doonin gedo haddii aan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya halkaasi laga qaadin si kastaba ha ahaatee xiisad xoogan ayaa halkaasi ka dhalatay khilaaf xoogan madaxweyne Farmaajo ayaa ballantii uga baxay Axmed Madoobe waxa uu doonayaa halkaasi ciidanka laga qaado isla markaasina baarlamaanka federaalk Soomaaliya gobolka Gedo laga soo dooranaya u madax banaanaato laakiin madaxweyne Farmaajo ayaa ku tashanaya gobolka Gedo xildhibaanada ka imaanaya in uusan wax laaluush ah ku bixin kaliya balan oo u sameeyo hase ahaatee xaaladda meel xun ayay maraysaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta furay kalfadhiga saddexaad ee golaha wakiilada Jubbaland isagoo khudbadiisa furitaanka kaga hadlay dhinacyo kala duwan ugu horeyntii madaxweynaha ayaa xildhibaanada ugu warbixiyay xaaladda Jubbaland isagoona sheegay in muddo hal sano ahi ay ka soo wareegatay markii dib loo doortay sababta oo ilaa haddana xukuumadda u soo dhisi la yahay ay tahay inuu raadinayo midnimo iyo wadajir Jubbaland oo dhan ahi taas oo ilaa hadda guulo la taaban karo la gaaray waxa uu madaxweynaha sheegay hadda wixii ka dambeeya uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo ka dhabaysa himilooyinka shacabka iyo filashada ay ka qabaan dowladda Jubbaland ayuu yiri wuxuu intaasi ku daray madaxweynaha in dhibaatada ka
taagan gobolka gado ay tahay wax ilaa hadda uu raadinayo sidii xal loogu gaari lahaa islamarkaasina uu albaabada u furay cid walba oo arrintaasi ku lug leh gaar ahaan dowladda federaalk soomaaliya balse ilaa hadda ay dhinacooda waxba ka socon la'yihiin ayuu yidhi madaxweynaha ayaa bogaadiyey dadaalka ay wado wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ee lagu dhisayo golaha deegaanka degmada afmadow isagoo xusay in sidoo kale la bilaabi doono dhismaha golayaasha deegaanada degmooyinka kale gaar ahaan gobolka gado ayuu yidhi madaxweynaha ayaa sheegay in arrimaha doorashooyinka heer federaal laga gaaray heshiis dhab ahi kaas oo dhabaha u xaaraya sidii dalka uu ugu jihaysan lahaa doorashooyinka 2020 taas oo ah waddo aan la dhaafi karin oo sal iyo taariikh lagu yaqaano oo ah dowladnimadeena in 4 sano hal mar ay dhacdo doorasho dalka u jihaysa wadada horumarka ayuu yidhi waxaa kale oo madaxweynahu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in ka hor doorashada xildhibaanada federaalka ahi xal laga gaaro arrimaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo jubbaland oo ay ugu weyn tahay arrinta gado wuxuuna intaasi ku daray madaxweynuhu in iyadoo ayna gobolka tegin maamulka gobolka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland dowladda federaalka ahna aanay ciidamada kala bixin gobolka ayna dhici karin doorasho xildhibaanada qaybta loo asteeyey magaalada garbaharey ayuu yidhi ugu dambeyntii madaxweynaha jubbaland ayaa ugu mahadceliyey golaha wakiilada jubbaland shaqooyinka waxtarka leh oo ay hayaan isagoo si rasmi ah u furay kalfadhigii saddexaad ee golaha wakiilada jubbaland dhinaca kale jadwalka soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka hirshabelle oo la shaaciyey guddiga farsamo soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabelle ayaa soo saaray jadwalka soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabelle kulan ay maanta yeesheen guddiga ayaa laga soo saaray jadwal qeexaya sida ay howlaha soo xulista baarlamaanka u kala horeyn doonaan jadwalka ayaa ku qoran in maalin ka hor xilliga ay ku eg tahay muddada baarlamaanka koowaad oo ay 9 bishan ay bilaabanayso howlaha guddiga soo dhoweynta duubabka hubinta iyo dhammaystirka liiska odayaasha dhaqanka 8 Oktoobar ilaa 15 Oktoobar ayay ku eg tahay dhammaystirka howlaha qabanqaabada xulista iyo u diyaargarowga doorashada hirshabelle 16 ilaa 20 Oktoobar diyaarinta hubinta iyo soo gudbinta liiska xildhibaanada hirshabelle 21 ilaa 25 ayuu ku eg tahay xalinta khilaafaadka la xiriira liiska xildhibaanada 26 ilaa 28 xafladda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee hirshabelle 31 Oktoobar ayay dhacaysaa kulanka koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowladda hirshabelle 1 November ayay dhacaysaa doorashada guddoonka baarlamaanka hirshabelle 5 November ilaa 10 November ayay dhacaysaa intaas ayaa lagu asteeyay dhinaca kale dowladda oo ku dhawaaqday go'aan lama filaan ahi oo la xiriira warbaahinta dowladda federaalk Soomaaliya ayaa maanta markii u horeysay shaacisay in hadda wixii ka dambeysay warbaahinta dowladda loo bedelay warbaahin dadweyne taasi oo meesha ka saari doonta faquuqii mucaaradka siyahayaha wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho ka daahfuray adeega warbaahinta dadweynaha oo meesha ka saari doonta qaabkii hore ee ay warbaahinta dowladda u shaqayn jirtay wasiirka ayaa sheegay in hadda kadib ay warbaahinta dowladda federaalka baahin doonto wararka kala duwan ee mucaaradka muxaafidka iyo waliba arrimaha kala duwan ee dadweynaha wuxuu sheegay in arrintaasi ay saameyn doonto warbaahinada gaarka ahi ee maamulada dalka oo iyagana looga baahan yahay inay ku dhaqmaan siyaasad cusub oo loo dejiyo warbaahinta dowladda warbaahinta qaranku waxay noqon doontaa warbaahin dadweyne oo marka u horeysa u adeegta dadweynaha taasi oo gudbin doonta fikrado kala duwan ee dadweynaha ayuu yiri wasiir Maareeye arrintani ayaa imaanaysa xilli xal laga gaaray khilaafaadka ka taagnaa arrimaha doorashooyinka isla markaasina uu hoos u dhacay guuxii siyaasadeed ee mucaaradka uu ka waday dalka tallaabadani oo kale ayaa waxaa hore u qaaday xukuumadda Somaliland oo iyadu sheegtay in warbaahinta dowladda loo siman yahay xilli ay deegaanadeeda ka dhici doonaan doorashooyinka isku dhafan oo wakiilada iyo golaha deegaanka ahi